Afrika ka mid ah oo taageerayaasheeda ay joogaan. Okay, sheekadan wuxuu keenay waxay ahayd markii aan anigu keenay. Ana keenay oo dhar soo saaraya. Ana intu stoon macnaha xilliga xagga baan soo dhigi doonaa xilliga anigu dhahay. Hada doonisiin ku soo daawan kartin xilligu isagu dhahay. Markaan anigu dhahay ayuu isaguna dhahay arintaas. Hadana waxa yiri waa iska daayay macnaha dhar soo saaraya dhahay soo wada wuxuu iska daayay. Kadibna waa iska aamusay anu shadooy baan dhar soo saaraya waa tobaad koodi waxbay ahayd. Imika waa soo saaray isaguna. Waxa koobi laada. Banaanka kaliya toon ma waa sheeko dadka inta badan baraha bulshada ay isla wada marayaan. Waa Najuu Araale oo ah gabar ka mid ah youtuberada Soomaalida oo uu sheegay Siigay inuu ka dhaxeeyo xiriir. Najuu Araale inaad jab ku noqotiin loo baahan yahay. Najuu Araale officially ani iyada xiriir baa naga dhaxeeyo waa in aad soo dhaweysaan Najuu Araale. waxa koobi laada. waxaan rabnaa inaan isdul taagno xiriirka la sheegay Siigay iyo weliba Najuu Araale iyo weliba Drisle Cabdi oo ahaa qofkii soo saaray Najuu isagana maxaa ka dhaxeeya. Warbixintaasi oo faahfaahsan ayaan idinla wadaagi doonaa. balse intaan muuqaalka guda galin fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysa ay channelkeena soo booqato subscribe saar channelka, like saar videoga aad ayaa u mahadsantahay. aanu guda galna muuqaalkeena. Siigay oo ka mid ah youtuberada Soomaalida ayaa soo bandhigay inuu xiriir kala dhaxeeyo gabadha kale oo youtuberada ah Najuu Araale. dadka oo inta badan la yaaba hadalkaasi ayaa isweydiiyay su'aalo dhowr ah ay ka mid yihiin waa maxay xiriirka ka dhaxeeya Siigay iyo Najuu iyo weliba Drisle Cabdi isna muxuu ka yiri. balse waxaan rabnaa in xaqiiqda ay idinla wadaagno. ugu horeyn Siigay iyo Drisle ayaa ah laba dhalinyaro ah oo sameeyay muuqaalada reaction-ka ee bartooda YouTube-ka. waa laba dhalinyaro inta badan xifaaltan soo jireena ka dhaxeeyo iyagoo inta badan la arkayay iyagoo si sarbeeba isku dhaleeceynaya ama isku dhaliilaya. weliba waa laba dhalinyaro ah oo hal wadan isla wada jooga. waxaan idin tusi doonaa muuqaal oo Drisle Cabdi ku shaacinayo in Siigay inta badan uu sameeyo waxyaabaha Drisle uu sameeyo. waxa uu leeyahay Drisle waxa inta badan uu iga goobiyaa waxyaabaha aan sameeyo. balna la daawada muuqaalkan. Okay, sheekadan wuxuu keenay waxay ahayd markii aan anigu keenay. Ana keenay oo dhar soo saaraya. Ana intu stoon macnaha xilliga xagga baan soo dhigi doonaa xilliga anigu dhahay. Hada doonisiin ku soo daawan kartin xilligu isagu dhahay. Markaan anigu dhahay ayuu isaguna dhahay arintaas. Hadana waxa yiri waa iska daayay macnaha dhar soo saaraya dhahay soo wada wuxuu iska daayay. Kadibna waa iska aamusay anu shadooy baan dhar soo saaraya waa tobaad koodi waxbay ahayd. Imika waa soo saaray isaguna. waxa koobi laada. banaanka kaliya toon ma aha waxa uu lahaaba YouTube-kiisa laba koobiya. waa daawadeenaan filaa waa Drisle oo sharaxaya waxyaabaha inta badan uu ka goobiyay Siigay. iyadoo arrinkaasi ay jirto ayaa haddana waxaa soo shacbaxday in Siigay uu sheegay in Najuu Araale uu xiriir kala dhaxeeyo iyadoo la wada ogyahay Najuu inay tahay gabar ugu horeyn soo shacbixiyay Drisle ugu horeyntiisana ay ka soo muuqatay channelka Drisle Cabdi isagoo u sameeyay share audio iyo weliba channelkiisa maalmo isla soo fadhiistaan. dadka su'aasha inta badan isweydiinayaan ayaa waxa ay tahay ka hor inta Drisle uu soo fadhiisin Najuu miyay is yaqaaneen Siigay. jawaabta waxaa looga fadhiyaa dadka sheegay inuu xiriir kala dhaxeeyo. balse dadka inta badan ayaa sheegaya in Drisle Cabdi uu ugu horeyn gabadhani soo shacbixiyay kadibna ay noqotay youtuberad caana isla markaasna soo bandhigta muuqaal iskeeda. balse su'aasha inta badan ee dadka isweydiinayaan ayaa ah waa maxay sababta Siigay ku kaliftay in gabar uu soo shacbixiyay Drisle uu si live ah u sheego inuu xiriir kala dhaxeeyo. waa su'aasha inta badan u muuqata inay tahay karbaash lagu karbaashayo Drisle. bal aan ka soo tagno warbixintaasi. waxaan rabaa inaan isbarbardhig ku sameyno Drisle Cabdi iyo Siigay.
sidaan ka warqabno labadan dhalinyaro waa reactionistayaal soo bandhiga heesaha lasoo qaado iyadoo ay leeyihiin janaalo badan sida Drisle Cabdi oo leh 3 janaal iyo Sigay oo leh 2 janaal. Waxaan rabnaa inaan isbarbar dhigno heerka taageero labadan qof. Drisle Cabdi ayaa iskoor waxa uu sheegay inuu jebiyay in 2 janaal ay u gaareen min 100k isagoo midka saddexaadna hadda uu ku sii dhow yahay. Isagoo biliba sheegay in bilooyin gudahooda oo janaaladaasi 100k ku gaarsiiyay. Balse Drisle ayaa inta badan janaalkiisa aan ka soo muuqan dad kale. Isagoo inta badan sheega in nafsadiisa uu ku kalsoon yahay qofna uunan karab karabin. Balse Sigay ayaa inta badan reactioniste balse socdaal badan isagoo wadamo badan tagay uuna la kulmay youtubero kala duwan kadibna isla soo sameeyeen muuqaalo. Waa isbarbardhigga labadan shakhsi balse ma cadda inta xiriirka saxda uu kala dhaxeeyo gabadhaasi. Balse sida aan wada arkeyno ilama aha in Drisle uu xiriir la sameynayo gabadhaasi balse dhacdada Sigay ayaa u eg kirbaash. waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar like saar videoga si aysan kuu dhaafin muuqaalada aan soo gelino next video ayay noo balana bye bye. هنا لما جرب ويا جردي وعقلي الله كقلدي وكذا جروي قال كعي قلبها ري إلا جالسة قوري على الله بيقودنا قال صربان قال قبل شدنا اسميديا أبتمعاني سجن وشير عن كأي مخالدة يو محل يريد فيوسيدة يبرنامج شيء خبرناه خيب أي كليهن أو أي قد دعوان توتا حلو صياعه سوير كيسنا وكاسا مجدا كل إلا الله صياعه وكلا ماليس ميديا ما شاء الله أبو على بعسم سبسكرايب لايك شير كومنت ماليس ميديا برودكشن اسمي وحلي هاي dadku xiran subscribe saarano like share comment inta taageeraha miya Maalis Media markii dadka walaalay inay ku soo dhawaanaa jecelahay jaajuuma meesha ku aragtiina soo yaaca ku soo yaaci kartaa ama furun kulli illa qalbi furun faqal inaan gaarsiisin aad u jecelahay ka badan helina iniga ka rabna sii garay qof kale ka rabna siinay